السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسن دلهانتين بوامر كلا يحمنتيني ورقتي وحي قرآن أو تضبط كهال مركز هاتان شاشة التلفزيون كان يسمع تي في برنامج كهلا وحيدين دادي ساني قواعد منوسة wargeyska dawana ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu amaanay laba go'aan oo geesinimo leh oo fuliyay. Qormada wargeyskan ayaa soo baxday 27 bishii Agoosto ee soo dhaafnay sanadda 2021. Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa qoray cidna xaq uguma laha inay Soomaaliland ka filato inay kaligeed u babac dhigto oo ay gaashaan u noqoto dunida haddii aanay helin aqoonsi buuxa iyo taageero dhaqaale oo caalami ah. Ambassador Kaysar Cabdullaahi Maxamed oo soo xigtay wargeysku. Siyaasi Ambassador Kaysar Cabdullaahi Maxamed oo wargeysku soo xigtay ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliland gaf iyo xaq darro caalamku kula kacay ku tahay in dusha la saaro mas'uuliyadda la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda iyadoo aan la siinin wixii ay xaq u lahayd oo ah aqoonsi caalami ah iyo mid dhaqaale oo u qalma mas'uuliyadda baaxadda weyn ee xasaasiga ah. Danjira Kaysar ayaa qoraalkiisa ku bilaabay 29 bishii July sanadkii 2019 ayay ahayd markii madaxweyne Biixi uu soo saaray amar uu ku cafinayo 19 qof oo burcadbadeed reer Soomaaliya ah kuwaas oo soo xukuntay maxkamad ku taala dalka Shiishaliska dibna loogu soo wareejiyay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. maxaabiistaas oo shakhsiyan ku booqday jeelka marar kala duwan waxay u badnaayeen dhalinyaro waxaana ay sheegeen inay badankoodu ahaayeen kalluumaysato oo ay badada ka difaacayeen doonyaasha shisheeye ee xada khayraadka Soomaaliya. waxa kale ay sheegeen inay badankoodu wax rafaan ah ka qaadan dambiyada lagu helay maadaama ay aad u baqayeen xukunka maxkamadda Shiishalisku riday oo qaarkood gaarsiisna 40 sanadood. madaxweyne Biixi isagoo fahansan culayska ay leedahay sii deynta maxaabiista heshiis caalami ah lagula galay dowladda Soomaaliland oo xataa aanay furnayn maxkamadaha Soomaaliland kiiskooda dib u eegaan ayuu haddana ku dhiirraday inuu xabsiga ka sii daayo 19 maxbuus ee xidhnaa burcadbadeeda.